dadweynaha ku dhaqan magaalada Qorlugud ee gobolka Togdheer ayaa dareen cabasho xooggan ka muujiyay xaaladda waxbarasho ee deegaankaasi. dadweynaha ku dhaqan magaalada Qorlugud ee ka tirsan gobolka Togdheer ayaa maray la hadlayeen warbaahin halkaasi ku booqatay waxa ay sheegeen in xilligan ay xaalad adag ka jiraan deegaankaasi oo dhanka waxbarashada iyadoo kaalmaha ugu horeeyana degmada Qorlugud ay ka qaadato horumarinta iyo adkeynta nabadgelyada ee Somaliland balse waxa ay dadka deegaankaasi sheegeen in dawlad kasta oo ka dhalatay Somaliland aanay ugu hambaynin sidii ay ugu liseen dadka ku dhaqan deegaanka Qorlugud waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha deegaanka Qorlugud oo ka cabanaya xaaladda waxbarasho ee deegaankaasi. Wuxuu ka hadlayay magaca degmada ahna gudoomiyihii degmada Qorlugud Saciid Maxamuud Sheekh Cabdi waxaan halkan ujeedada xafladda tan maanta aanu sameynay marka aan ku soo dhawaado waxay arrintaas ku saabsan tahay baahida iskuulka maanta aan joogno sare ama hoose dhexe dhammaanba marka la isku qaado guud ahaan baahida degmadu way fara badan tahay runtii ilaahay baa wax baahi tira aad iyo aad bay baahida degmadu fara badan tahay halkan kuma soo koobi karno waxaanu halkan maanta aanu khaas yeelay inaan ka hadalno baahida dugsigan aan joognay aan ka hadlayno oo xirmo mushahaaradii macallimiinta markii loo waayay dugsiga hoose oo aan macallimiinteedu kala badh u qaadan guryaha wasaaraddu bixiso waxaanu codsanaynaa baahiyahayaga ka mid ah waxaasoo dhan cidda waxaa kaba mas'uul joog oo ah guddiga deegaanka Qorlugud xoghayaheedii waxaan codsanaynaa si mid loo codsanaynaa si baahidii raggii hore ka hadlay iskuulka iyaga oo aad hoos ugu yimi waa primary weeyaan primarygaasi wuxuu ku jiraa ismuhu keene ma qalabaysnaa waxaanu ka salaameynaa halka kan waxa laayay waxayagii qurba jooga waxaanu doonaynaa wax qabad muuqda oo muhiima inaan noo qabataa deegaanka Qorlugud haweenkiisana ah waxa aan bariyo wanaagsan dirayaa waalidiinta waxaan bariyo wanaagsan dirayaa qurba joogteeda jirta dawladaha Abdalla Muusabule kuwa kale ee noola midka ee jooga xalfadan ballaaran ee aanu qabanay inay hawsha dadku hore u yidhi hadalka laguma tuntay hore ay u yiraahdeen inay wax nooga qabtaan dugsiga hoose dhexe kuwa wax ka dhigana bal baan dawladana guna ka qaadan oo iyaguna dee waxa ay ku shaqaynayaan ay tabarruc tahay baahiyaadka kale ee dugsigana raggiiga horeeyay iyo dadkiiga horeeyaba ragga dalba ka hadlayo ku noqon maayo ee sidaas ku taagsiiday waxaan halka raacinayaa oo halka dhaliil iyo canaan uga soo jeedinaya nimanka xildhibaanada ah ee deegaankan u dhashay kuwa saraakiisha ah ee dawladda u shaqeeya ee deegaankan u dhashay xildhibaanadu guurtina waa leeyihiin shacri daliilo baarlamaankaana waa leeyihiin kuwii fartooda ugu deeqay ee kursiga ku fadhiyaan inay helaan oo ku fadhiistaan iyo doorashada ay soo baxaan u sababta ahaa ubadkii nooca ahaa kuwii caynkaa u soo saaray ubadkoodii iyagiina halkan ay ku dayacan yihiin maalintii ay codka heleen oo kursiga ku fadhiisteen ayaa ugu dambaysa dib umay soo eegin dadweynaha waa nasiibkii ciddii aad doorateen waa tasadaa idin gashay ciddii aad doorateen waa tasadaa idin gashay dib uga fiirsada qofka aad dooraysaan ee geysanaysaan meesha inuu noqdo waxaad ku dadaashaan inuu noqdo qof idinku soo noqon doona iyo inaanu noqon dib uga fiirsada canaanta caynkaasa waxaan u jeedinayaa nimanka kursiga ummadda ku fadhiya ee matalaya ee cunaya hantida ay ku heleen codka dadka nimanka cunaya ee saa ku cunaya bal inay xalaal noqoto in kale taasaynu eegaynaa bal inay inay ajar ka helaan in kale saasaynu eegaynaa inay ciqaab ku mataan in kale taasaynu eegaynaa waxaan ku noqonayaa xukuumadda Somaliland waxaan dareenkayga oo la qabaa dadka deegaanka ee aan halkan ugu imi aniguna igu soo casuumay shirkan waxaan la qabaa in uu dayac weyn oo aanay deegaanku iska qaadi karin meesha ka muuqdo waxaa ka mid ah iskuulka waxyaalaha la sheegay mushahar la'aan u xiran qalabayn la'aantii dugsiga sare laabab male
iskuulku geed ma leh oo ardada lagu kontrolo male wax walba way soo galaan barkadii way ka dayacan tahay waardiyaashii baa ka dayacan wax waliba waa si aad iyo aad bay hoos runtii ugu liidataa hadday taasu timaadana karaamada iyo sharaftii deegaanka oo dhan baa baaba'aysa haddii isha qura waxbarashada ay ka xumaato sidaa awadeed waxaan ku baaqayaa oo aan la qabaa oo aan qurba joogga ugu baaqayaa dibadaha jira oo aan anigu ugu horeeyo oo maanta maadaama aan goobta joogo oo ninkii iskuulkaa dhisay cabdalla lule waa nin khayr badan waxyaalo badan oo khayriya buu dalka ka qabtay waxaanu mar labaad ka codsanaynaa oo aan la qabaa dadka deegaanka in uu soo farageliyo arrintaas oo wax ka qabto baahida meesha taalla waxaan kaloo codsanaynaa heesta kalena waxa ay dadweynahani ugu baaqay qurbo joogta u dhalatay deegaankan iyo weliba xildhibaanada ku jira labada gole ee baarlamaanka Somaliland inay ka gaabiyeen dadkii shacabka ahaa ee soo doortay inay wax u qabtaan. Cabdi Faarax Cabdilaahi, shabakada caalamiga ah ee Burcoonline, magaalada Burco.